الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. markale kusoo dhawaada barnaamijka fikirkaaga. maanta waxaan la wadaagi doonaa cudurka la yiraahdo diabetes mellitus ama cudurka la yiraahdo sokorowga. waxaan idin la wadaagi doonaa waa maxay cudurkani sokorowga la yiraahdo, waa maxay noocyada uu kala baxo, maxaa keena, maxaa astaamaha lagu garto, waa maxay cudurkan, sidee loo ogaadaa markaad iska shakisan tahay sidee loo ogaadaa inaad cudurkan qabto, muxuuse keenaa jirka u keenaa problem iyo dhibaato u keenaa, sidoo kale maxaa lagu daweeyaa. cudurkan sokorowga ama diabetiska la yiraahdo waxaa lagu magacaabaa ama la yiraahdaa the queen of disease baa waa boqorada cudurada oo dhan ayaa lagu magacaabaa. cudurada dhan iyo problem badan bay keentaa. waa maxay cudurkan sokorowga? yani sidaa ogna markaa wax cunno, yani markaa bariis iyo baasto iyo noocyo kala duwan cuntada markaan cunno, markaa cuntadii caloosha mindhicirada ay tagto, dabeetana waxaa dhacaya dhiigaaga kor ayuu u kacayaa, yani dhiigaaga kor ayuu u kacayaa. dabeeta marka dhiigga kor u kaco, dabeeta isla markiiba waxaa imanayaa ganaca ama waxa la yihahdo bankeriyaska ayaa markiiba wuxuu soo saarayaa yani dheecaan la yihahdo insulinta markiiba waxay sameynaysaa dhiigga ay ka yareynaysaa, sokorta ka yareynaysaa ama sugarka ama glucoska ay ka yareynaysaa. dabeetana ay u diraysa unugyada kale ama selska kaleeto oo kamid yihiin murqaha iyo ku kaydinaysa iyo beerka, yani glycogen storage ayadoo sameynaysa gelinaysa xagga ku kaydinaysa si loo isticmaalo marka aadan wax cunin. laakiin nasiib darro marka qofka diabetes hayso ama cudurka sokorowga markuu hayso, waxaa dhacaya insulinkii ama bankeriyaskii ama ganacii ma soo saarayo insulin, ama intii loogu talagalay oo loo baahnaa ma soo saarayo. waa maxay noocyada kala duwan ee diabetiska? diabetiska waxaa loo qeybiyaa 3 qeybood ayaa loo qeybiyaa. qeybta koowaad waxaa la yidhaha type 1 baa la yidhaha, ama nooca sokor yani macaanka sokorta qeybta koowaad ayaa la yihahdaa. qeybta inta badan ama waxaa lagu magacaaba la yidhaha juvenile diabetes, yani wuxuu ku dhacaa dadka da-da yar oo inta badan 30 ka yar ayuu ku dhacaa magaranaysa de. waxaana keenaa yani cudurka waxaana keenaa autoimmune disorder waxa la yidhaha, qofka yani difaaca jirkiisa oo weerar ku qaada bankeriyaska ama ganaca weerar ku qaada, ama qofkii virus ku dhaca, ama marar qaar oo yani genetic ayadoo magaranaysa hidasida ah. nooca waa nooca koowaad. inta badanna waxaa la yihahdaa qofka waa insulin ayuu ku xirnaanaya, mar walba waa inu irbada insulinta mar walba inuu qaataa. diabetiska nooca labaad ama type 2ga waxaa la yihahdaa type nooca labaad ee diabetiska. inta badan wuxuu ku dhacaa dadka markii ka weyn 40 ayuu ku dhacaa. inta badanna waxaa keena qofka cunto fara badan cunaa, qofka magaranaysa de yani buuran, yani qofka cayilan, qofka magaranaysa de obese ah, yani qofka miisaankiisii xadkii lagu talagala dhaafa. sidoo kale waxaa keena nooca labaad la yiraahdo diabetiska type 2ga waxaa keena qofka magaranaysa de oo meel intuu wax cuno meel iska fariisto magaranaysa de aanaa wax dhaqdhaqaaqa sameyninba. nooca saddexaad ee diabetiska loo qeybiyo waxa weeyaan waxaa la yidhaha gestational diabetes. wuxuu ku dhacaa haweeneyda uurka leh markii ay gaadho bisha 4aad ayuu ku dhacaa, yani sokorta dhiigeeda macaanka ayaa kor u kaca. dabeetana haweeneyda markay dhasho dib ayuu u noqdaa, halkiisa loogu talagalay ayuu dib ugu noqdaa magaranaysa. waa maxay astaamaha lagu garto yani macaanka, waa cudurka macaanka? waa maxay astaamaha lagu garto? astaamaha lagu garto uga weyn waxaa kamid a qofkii magaranaysa dee hararaad fara badan hayo oo biyo badan cabaya, qofkii mar walba suuliga gelaya, qof oo soo kaadi haysa magaranaysa. sidoo kale gaajo badan baa lagu gartaa. sidoo kale waxaa lagu gartaa qofkii oo taag daran, qofkiiba magaranaysa bilaa awood ah ayaa lagu gartaa, qofkiiba daal fara badan dareemaya. sidoo kale waxaa lagu gartaa qofkii oo cuncunaya. sidoo kale waxaa lagu gartaa qofkii oo magaranaysa yani process of healing, qofkii yani xilligu bogsan lahaa ma xilli ka dheer ayaa lagu gartaa. sidoo kale waxaa lagu gartaa infectionka ay cudurada dhan baa qofkii magaranaysa dee u fududaanaya inay ku dhacaan. okay, yani waxaa dhacaysa qofka marka yani sokorta glucoska markii loogu talagalay xilligii yani heerkii loogu talagalay markay ka hooseyso ayaa waxaa dhacaya waxaa ku dhacaya waxa la yihahdo hypoglycemia, yani qofka hoos ayay u dhacaysaa, sokortiisa aad bay u dhacaysaa,
dabeetana waxa ku dhaca waxa la yiraahdaa diabetic coma qofkii wuu suuxayaa coma ayuu gelayaa. Okay, waa maxay baaritaan sidee ku ogaan karaysaa haddaad qaar ka mid ah calaamadaha aad aragto sideed ku tijaabinaysaa inaad qabto? waxaa jirta waxa la sameeyo wax la random magaranaysa blood glucose-ka adigoo eegaya yani aalad yar adigoo isticmaalayo yani farmashiga ka siibsan karayo aalada noocan ba ay u egtahay. waxaa sameynaysaa irbadan baa isku mudaysaa dabeedna dhiig markuu ka yimaado xagga baad saaraysaa waad arkaysaa yani normal range-ga ama inta normalka loogu talagalana waa inta udhexaysa 4 ilaa 7 keer inta hadduu soo baxo yani millimole per liter hadduu yahay inta يعني waxa weeyaan waa normal waa inta udhexaysa 7 يعني 4 ilaa 7 inta udhexaysa waa normal yani marka inta waa caadi. wixii ka batana waxa weeyaan waa diabetes waxa la ahaa hyperglycemia. wixii ka hooseeyana waa nooc ka mid ah diabetiska hypoglycemia ayaa ayadana la yiraahdaa. sidoo kale waxaa sameyn kartaa wax la yiraahdo fasting blood sugar. yani waa maxay adigoo sooman ugu yaraan 8 saacadood aan waxba cunaynin ayaa wax laga qaadaya yani sokortaada glucose-kaaga yani ayaa tijaabinaysaa. waa inay ka hooseysaa waa inay ka yar tahay yani 7 waa inay 7 millimole per liter waa inay ka yar tahay magarasa 7. haddii 7 ka badan tahay problem baa isla markaa sokorta khatar ayaa ugu jirta. sidoo kale waxaad sameyn kartaa adigoo tijaabinaya wax la yiraahdo oral glucose tolerance test. yani marka hore adoo waxba cuni baa laga qaadaya waa la tijaabinaya sokorta macaanka dhiigaaga dabeetana markaa waxaa lagu siinayaa glucose sokor baa lagu siinayaa ama cabitaan yaroo dee macaan wax ku jiraan oo glucose ku jirto weliba yani 75 gram ayaa ku jirta ayaa lagu siinayaa dabeetana waa la eegaya markaa macaankaaga. haddii xilliga ka badato yani 7.8 hadday ka badato yani waxa weeyaan wax khatar ku jirtaa inaa cudurka haysato. sidoo kale waxaa la isticmaalaa waxa la yiraahdo yani hemoglobin glycated yani waxa weeyaan ama waxa la yiraahdaa A1C idin waxa weeyaan waxa la the average-ka yani 2 bil ama 3 bil ku dhawaad waxa la eegayaa sokortaada ayaa la eegayaa dabeetana celcelis aan halkee maraysa ayaa la eegayaa. okay, waa maxay cudurada iyo problemka kale ay keento yani sokorta? waxa ognahay waxyaalo fara badan waxa ka mid ah waxa keento waxa la yiraahdaa microvascular yani complication. yani waxa weeyaan unugyada yaryar ama xididada yaryar ee dhiigga qaada ee siiya indhaha ama magarasa dee yani kidniga ama kilyaha ayaa waxay samaysaa way baabi'isaayo way xumaysaa. dabeetana qofkii waxaa ku dhacaya indhaha ayaa wax ku dhac aragtidii ayaa wax yaraanaysa dabeetana qofkii waxaa imanaysa inuu waxba arki waayo ama waxaa ku dhacaya waxa la yidhaha kidney failure yani kilyihiiba inay shaqayn kari waayaan ayuu imanaysaa. sidoo kale waxa la yidhaha macrovascular complication oo macnaheedu waxa weeyaan xididada waraabiya dhiigga wadnaha ka mid ah ama maskaxda ayaa xumaysaa ay istaajisaa ay carqaladaysaa dabeetana waxaa ku dhacaya wadnaha dhiiggii loogu talagalay xididada wadnaha ma heliyo magarasade marka qofku waxaa ku dhaco khatar ku jira in waxa la yidhahdo angina bacteris oo qofkii magarasna wadna xanuun ku dhaca. waxaa kaloo ku dhaca waxa la yidhahdo myocardial infarction dabeetana waxa weeyaan cardiac arrest waxa weeyaan wadnihii o dhan inuu istaago ama xanuunada wadnaha o dhan ayuu keenaa ku dhaca magarasade. sidoo kale waxay dhaawacdaa wax la yiraahdo neurological complication yani dareemayaasha ay baabi'isaayo dee ay tacbaan ka dhigtaa dabeetana waxaa imanaysa la yiraahdo diabetic food. waxaa laga yaabaa lugtiisa qofku inuu magarasda nabar ka soo baxo ama magarasda dareemaha ka tagaan eena waxba dareemin qofkii nabar ba ka soo baxaya waxaa laga yaabaa inta badan waxay keentaa qofka laga jaro lugta qaybo ka mid ah in uu kusoo la gooyo sababtoo dareemaha iyo xididada dhiig siinay dhanba baabaya dhimanaya. okay, waa maxay daaweynta lagu daaweeyo yani cudurkii la yiraahdo macaanka ama diabetiska la yiraahdo? qofku wuxuu u baahan yahay marka koowaad inuu lifestyle-kiisa inuu bedelo. maxaa ka mid ah qofki inuu sameeyo inuu miisaankiisa hadduu dee u badnaa inuu magaransa u yareeyo. sidoo kale cuntooyinka uu cunayo waa inuu wax fara badan ka bedela. waa inuu iska ilaaliyo cuntooyin magaransa markaan yani sida bariiska iyo baastada aanu naqaano weliba cadaanka ah waa inuu wax badan ka yareeyaa siduu magaransa dhiigga sokortiisa uu u yareeyo. sidoo kale waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah yani maadaama sokortu waa cuduro يعني اللي يرادا chronic disease بقى وعذره لا نولان كاريو مثلا قف ولا نولان كاريو هدو مانج جرايو سيدا صح هدو مانج جرايو وحياله ugu muhiimsan manage garanta waxa weeyaan qofku waa inuu sameeyo wax la yiraahdo physical activity qofku waa inuu dhaqdhaqaaqo waa inuu jimicsi sameeyo qofku waa inuu ordaa waa inuu socdaa waa inuu sameeyaa
qofka hadduu sigaar cabo waa inuu iska yareeya magaranaysa. Okay, waa maxay daaweynta ama treatmentiga sidee loo daaweeyaa diabetiska? waxaa jirta diabetiska nooca koowaad waxa uu loo baahan mar walba wax la yiraahdo insulin ay mar walba qofku u baahan yahay dhowr jeer maalintii inuu qaato markuu magaranaysa inta badan wax cuno ama intuu wax cuni ka hor labada jeer waa inuu magaranaysa mid kamid ah waa inuu qaato sida magaranaysa sokorta dhiigga ku kacdo uu u yareeyo. qofka nooca labaad qaatana wuxuu u baahan yahay magaranaysa inuu isticmaalo yani lifestyle-kiisa waa inuu wax ka bedelo, waa inuu jimicsi badan iyo dhaqdhaqaaq fara badan waa inuu sameeyo. sidoo kale kiniiniga inta badan kiniiniyo badan baa inta badan la isticmaalaa yani nooca labaad sokorta yani cudurka macaanka sokorta loo isticmaalaa noocyo fara badan baa loo isticmaalaa. kiniiniyada noocyada ugu badan waxaa kamid ah nooca la yiraahdo waxaa la yidhahdo metformin ayaa la yidhahdaa inta badan qof dadka diabetiska inta badan la siiyaa ama kiniiniga uga caansan. kiniiniyo kale iyo magaranaysa noocyo kale way jiraan laakiin nooca uga caansan intaa weeyaan. halkaan aan kusoo gabagabeynayna barnaamijka aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.